بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام دمان أصحابتي إذا مير ولا بعدونك كجوكتان كسر دوادا جنال كيغا فاتين فيميلي وإن كيغا مهد علينا يا سيد قروح بدنا أي داوتان هدا هوري إلي جوك جرتلاك تايغي لوين wixii tale iyo tusaalaana commentiga igu reeb hadaa igu cusub tahay subscribe ii dheh gambaleelka furo si ay kugu soo dhacaan fiidiyodeedii insha Allah asxaabta cusubna waxaan leeyahay soo dhawaada aad ay u mahadsantihiin maanta waxay noo wadaa shafka doorada iyo qudaartiisa oo lagu dubayo foornada insha Allah waxay noogu bilaaw doontaa sida tan digaag ayaan ka bilaabayaa maxaa yeelay digaag ilna qasac baar ay u baahan yahay waan soo dhaqay waan soo nadiifiyay digaaga maasha Allah si fiican waa inaa u dhaqdaa u nadiifisaa haddana waxaan sameynayaa insha Allah digaag ayaan qabanayaa halkii cad laba cad ayaan ka dhigayaa insha Allah maxaa yeelay hadduu hal cad yahay dheecaanka gudaha ma ka galaayo hadhowna si fiican ma u bislaanayo insha Allah asxaabtiisa soo la socda haddii la yiraahdo haddana hal xab ayaan tusayaa inta kalena waxaan sameynayaa fiidiyooga ayaan deminayaa waa soo dhammaystirayaa insha Allah ما شاء الله سيدان أيو كسو بحي مركا مديدو كو كلا جاري هادنا وحان سمينيا يعني قدارتي أو يعني بهاراتكي وحيابي أن قدر لهاي الدقاقة هادنا ليمون أن صوم ميرا أيا هالكان كشوي يعني كبعدين وحان كشوي سليد وحي كاساعيديسا الدقاقة مكا قلالا إن شاء الله يعني حوغا ما شاء الله waxay u yeelaysaa jilic ka dhigaysaa saliid aan oo qalalaya kabacdi waxaan ku darayaa qalka cad qalkan wuxuu ka saacidayaa digaag ay dhadhana u yeelayaa insha Allah digaaga qalaan ma macaanaanayo haddana waxaan ku darayaa xabad yar oo yaayaan qofka ka soo fiiqay waa soo jarjaray kabacdi waxaan ku darayaa barbarooni aan soo jarjaray hal xab oo yar aan soo jarjaray كبعدين waxaan ku darayaa basal jeex basala basasha waxay ka saacideysaa ma sha Allah caraf ay ka dhigaysaa toon waa ku darayaa inta rabti insha Allah ani halahan ayaa ku darayaa كبعدي halahan isku shiidaya markay isku shiidmato ayaa isku soo naqaneena insha Allah ما شاء الله alaabti waa noo shiida haddana waxaan sameynayaa waxyaabii qaleelka ayaa buhaaraadka qaleelka ayaa isku darayaa haddana waxaan ku daraa cusbo qiyaasta aad inta rabto kabacdi waxaan ku darayaa xawaajiga oo yani waxaan ku darayaa filfil madow aan soo tumay kabacdi waxaan ku darayaa xawaajiga digaaga insha Allah oo isticmaal si uu digaaga qatar u noqdo kabacdina xawaaji mushakal ayaa ku darayaa xawaajiyaal isku dardara kabacdina waxaan ku darayaa xawaaji dhuudhuub aan soo tumay kabacdina haruud yar ayaa ku darayaa haddana waxaan ku darayaa yani xawaaji kaari wax yar oo basbaas ayaa ku darayaa maxaa yeelay ilmo ayaa cunaayo ma ka badinayo basbaaska insha Allah baabriika ku darayaa barbarooniga shiidan kabacdi xawaajiyaasha ayaa isaas yani u marinaya xurbinka oo doorshada maxaa markaas ku soo darayaa insha Allah yoogad 3 qaando ayaa ku darayaa yoogad alla yoogad ka haysato oo isticmaali kartaa insha Allah 3 qaando ayaa qiyaasta ka dhiganaya insha Allah hadaad doontid waa ka badsan kartaa hadaad doontidna 2 qaando waa ka dhigi kartaa insha Allah laakiin ana 3 qaando ayaa u isticmaalaya maanta insha Allah digaagiga uu yaryahay ma badno kabacdi waxaan ku darayaa shiishiid in yar ayaa ku darayaa insha Allah shiishiidkana dhanag yar u yeelayaa sigana insha Allah qaandada yar ayaa ku isticmaalo ujeedaa halahan ayaa waxaan ku soo darayaa alaabtii hadaata shiiday dheecaanki kabacdina waan qabanayaa xurbinka ayaa si fiican ugu qasayaa digaagana hadhow ayaan ku qasi doonaa insha Allah ما شاء الله alaabti waa noo qasa waa noo diyaariyay digaagi dhanaan soo qabanaya waan ku gidinayaa insha Allah waan qabanayaa digaaga dhexda ayaan ka gelinayaa dhuuxa meel kasta ayaan yani qabanayaa digaaga waan ku
masaajeynaya maxaa yeelay shafka doorada waa hilib keligiis ani ma jeexjeexin dheecaankan waxaan la dhigi doonaa insha allah adiga taqriiban 4 saac ayaa la dhigi doonaa amba 5 saac talaajadana qaybta hoose ayaa dhigi doonaa insha allah saas ula socda asxaabteyda bacdaas afka ugu duubayaa talaajada qaybta kor ha gelin qaybta hoose dhig insha allah saas ula socda kabacdina hadda waxaan noo diyaari doonaa insha allah qudaarteeni waxay ka koobnaa doontaa sida tan insha allah يعني waan soo diyaarsaday iyadana waan tusayaa xabad oo baradho ah iyo waxaan ka diyaarinayaa kuuso hadaa kuusi haysanin bocor oo ku bedel kartaa bocor alla bocorka jeceshahay iyo waxaan ku darayaa karooto qiyaasta aad inta rabto iyo xabad basal ayaa isticmaalaya alaabta waa soo dhaqayaa waa soo nadiifinayaa qobkan ka soo fiiqayaa waa soo jarjarayaa maxaa yeelay waa intusa hadaa dhoo fiidiyoga igu dheeranayo igraan naqad asxaabtii sida qudaar loo jarjaran qof aqooni ma laha ma sha Allah aad ay u mahadsantiin ma sha Allah qudaartina saan ayaan u soo jarjaray u soo yaryariyay ma sha Allah qiyaasta intaas ayaan kasoo dhigay kuusaha baradhadana intaas ayaan kasoo dhigay bashashana waa cad yaraa kasoo dhigay karootada sidoo kale ma sha Allah haddana waxaan sameyn doonaa digaag adaata aan qasaayay waqti talaajada oo ku jiro ma sha Allah waqtigiisa wuu qaatay iyo saxanka afurunka la gelinaa ayaan soo qaatay saxan dhala ayaa la gelinayaa hadaa dhala haysanina saxanka foornada waa la geli kartaa maxaa yeelay aluminium hoos ka xijinaysa si oona kaaga dhigin laakiin dhalada waxaan ku jecelahay aniga waxyaabaha ma ku dhageyso qudaarta camal ma ku dhageyso digaaga camal ma ku dhageyso laakiin saxanka foornada wuu ku dhagayaa insha Allah hada digaaga saxankaas kala ku sii shubtay qudaarta si aad dheecaanka ugu qaso si fiican qudaarta dheecaanka ugu qas ma sha Allah kabacdi waxaan sameyn doonaa digaaga iyo qudaarta ayaa isku dari doonaa qudaarta hoos ayaa marinayaa digaagana qaybta kore ayaa marinayaa insha Allah asxaabey foornada si aan u geliyo digaaga dhan kora marinayaa saas ula socdo qudaarta dhanna hoos ayaa dhigayaa insha Allah waa kaas asxaabtii digaaga kor ayaa soo mariyay qudaartina hoos ayaa soo mariyay hadhowna waa idin tusayaa insha Allah yani foornada markuu galo يعني وقتي كسوريد أي إذن شيء دجاج هوس قيبت قدرت حكتو سيدو كجذودون إن شاء الله هذا نحن سمينا ورقة وحن سوق هذانا أو يعني سبتة إيه ونكدو ويا كبعد الألومنيوم كأي كرك ساريا وصف في عن وضوب إن شاء الله هوس نهجرسيني محايل دبكي نكاتها وطلعياوا كإلالي سفي عن أفكو وحير كبعد وحن سمينا فرن كجلنا كرئي هوس أي أداريا لو بقول أي دقري وجينيا ساعدنا حل ساعي برا وجينيا إن شاء الله حل ساعي بر أي وجينيا دو اللي راهدو ساس ولا صعدة hal saac kadib digaaga waan soo bixiyay maxaa yeelay bar ayaa noo dhiman waxaan sameynayaa bacdan ka feedaya aluminiumka digaaga waan ku celinayaa si uu u gaduuto qaybta hoosan waxaan sameynayaa qaanda ayaan soo qaadanayaa markuu rubi saac ku jiro dhanka kale ayaa u gadinaya maxaa yeelay hoos qudaar ayaa taalo ma gaduudanayso saas ula socda asxaabteeda ما شاء الله دجاجنا واكنا أسيقو كور إيه هوس بكجذوتي ما شاء الله قيبت كور مركي كو جذوت قيبته سقانتا قادنا يسوي قدينيسا إنا فهمتين أيا رجينا يا أصحابتي إن شاء الله هذا نواكنا ما شاء الله صحنا أيا نوجسو دياري ما شاء الله صلاة ديار أيا نوجسو سمية إن بعادي معها ما شاء الله تبارك الله وإن تصيا هدارب تقيب أيان جرجرسي أو أركتين يعني مركز صلادك سميسنيسيد سي وجرجرتيد مركي أو يعني إن إسهاسة أربتين سيدة وقيبت كلا أيان كديجي محايلة مع الدويد أيان كسو سمي صلادا وأركتين أمالينا سان أيان أدوبتي qudaartina waatana ma sha Allah baradhadii iyo karootadii iyo kuusadii mana burburin waa u jeedaa saxankana meenu ku dhigi maxaa yeelay saxanka dhalu haysa ula socotiin dhalada waxaan ku jecelahay yani waxyaabaha ma ku dhageyso way ka fiicanta saxanka furanka ma sha Allah hadaas haysanin ilaahay kalif ma awoon waxa sameynaysa warqada oo aluminiumka hoos xijinaysa dhaqooga xataa hadhow ku fududaanaya saxanka ma sha Allah baradhadina u jeedaa sidii u jilcan tahay meena burburinin ma sha Allah weena jilcan tahay qudaarta waxaan ku jecelahay saliid mulugu shiilin ma sha Allah dhanaanka dooradana gudaha ayuu ka galay ma sha Allah inna caadi ma ahan dadka xataa iscaateenayo way anficaysaa maxaa yeelay saliid mulugu shiilin
digaaga sidoo kale saliid maana ku shiilin waana kaasa quruxdiisa maasha Allah asxaabi waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen fiidiyogeyga asxaabtiina igu sii share gari doontiin waxaan idin leeyahay inta fiidiyogan fiidiyo lamid aan ku kulmi doono salaamu calaykum